weligaa ma isweydiisay qofkee ayuu ahaa qofkii ugu horreeyay oo Soomaaliya oo YouTube-ka muuqaal soo geliya? qofkii ugu horreeyay oo Soomaaliya oo YouTube-ka aan maanta naqaano muuqaal soo geliyay. sida aan la socono YouTube-ka maanta dad badan oo Soomaaliya ayaa caan ka ah, ka dhex shaqaysta wanaag iyo xumaan wixii ay rabaanba ha soo geliyaan. laakiin waxaa jiray hal nin oo ahaa qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliya ee YouTube-ka muuqaal soo geliyay. arrintaana waa baaritaanka anigu aan sameeyay. marka ninkaas magaciis, kanaalkiisa magaciis, sanadkee ayuu soo geliyay, muuqaalkii ugu horreeyay ee uu soo geliyay muxuu ciwaan uga dhigay, kanaalkiisa guud ahaan meeqa qof ayaa daawatay ilaa iyo hadda. inta aynan u guda galin qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliya ee YouTube-ka muuqaal soo geliyay, aan wax yar ka niraahno shirkadda YouTube. shirkadda YouTube waxaa la aasaasay sanadkii 2005. laba dhalinyaro ayaa aasaasay. muuqaalkii ugu horreeyay ee uu soo geliyay mid ka mid ah dhalinyaradii aasaasay waa kan, wuxuuna ciwaan uga dhigay waa aniga oo jooga zuuga ama beerta xayawaanaadka. waa 2005 markii soo geliyay. cabaar kadib shirkadda Alphabet oo ah shirkadda hooyada oo ah shirkadda Google ayaa YouTube-ka gadatay, ilaa haddana iyada ayaa iska leh. YouTube waxaa la sheegaa in bishii ay active ka yihiin 2.5 bilyan oo qof. sidoo kale waxaa la sheegaa YouTube-ka inuu yahay meesha labaad ee ugu badan ee wax laga baaro markii laga soo tago Google-ka. waxaa la sheegaa sidoo kale maalin walba in 1 bilyan oo saac ay dadka dunida daafeeda kala jooga ay YouTube-ka daawashadiisa ay ku bixiyaan. weliba muuqaalada ugu badan ee YouTube-ka laga daawado waa kuwa ciwaanka looga dhigo how to ama sidee ayaan waxaa u sameeyaa. waayahay aan u soo noqono mowduuceena ah kee ayuu ahaa qofkii Soomaaliga ahaa ee ugu horreeyay ee YouTube-ka muuqaal soo geliya. qofkii Soomaaliga ahaa ee ugu horreeyay ee YouTube-ka muuqaal soo geliya waa ninkan la yiraahdo Liibaan Faarax. waa baaritaanka anigu aan sameeyay sanadkii 2006 ayuu soo geliyay. YouTube oo dhan waxaa la aasaasay sanadkii 2005. muuqaalkii ugu horreeyay ee uu soo geliyay waxaa la yiraahdaa Hagardaamo, hees weeye. waxaa daawatay ilaa hadda 1.3 milyan. ninkan Liibaan Faarax la yiraahdo ee Soomaaliga ah ee ah qofkii ugu horreeyay ee YouTube-ka muuqaal soo geliya, wuxuu soo geliyay ilaa 500 oo video ayuu kanaalkiisa soo geliyay. muuqaalkiisii ugu badnaa ee la daawadana waxaa la daawaday 2.4 milyan jeer. ninkan hadda uu iska daayay YouTube-ka sida kanaalkiisa markii aad booqatay aad ku arkaysid oo 11 sano ka hor ayaa ugu dambeysay inuu wax soo geliyo. qayb badan oo naga mid ah anaga 11 sano ka hor YouTube iyo wax la yiraahdo ma aysan aqoon. marmar waxaan isweydiiyaa yacni ninkan hadduu joogtayn lahaa inuu muuqaalada saa u soo geliyo, talow maanta intee milyan ayuu haysan lahaa oo daawasho iyo subscribe ah. yacni sanadkii 2006 ayuu YouTube-ka muuqaal soo geliyay, wuxuuna noqday qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliya ee YouTube-ka muuqaal soo geliya. su'aal yar oo kooban, adiga goorma ayay ahayd markii ugu horreysay ee YouTube-ka aad muuqaal ka daawatid? su'aasha labaad, waa kee qofka Soomaaliga ah ee hadda ugu subscribe badan YouTube-ka?